جدك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. ضاق عن وجدي بكم رحب الفضاء لا أبالي شرقه من غربه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الهدى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan idin ahaantiin meel kastoo joogtaan. waxaan idin rajeynayaa nabad qabtaan, iska caafimaad qabtaan. waa barnaamijkeenii taariikhdii iyo ilbaxnimadii Andalus. insha Allah tacaala maanta waxaan qaadan doonaa qaybteenii afraad. waxaan kasoo waranay markaa qaybtan ka horeysay waxaan kasoo waranay qaabkii Dariiq ibn Siyaad ku furtay Andalus. waxaan kasoo waranay isagoo taagan magaalada Tulaydila loo yaqaano, ilinkeeda iyo albaabkeeda hore isagoo taagan. insha Allah tacaala maanta waxaan ka warrami doonaa ay noqon doontaa tusmada muuqaalkeenani furashadii Tulaydila iyo qaabkii uu ku furtay Dariiq ibn Siyaad Tulaydila. waxaan kaloo ka warrami doonaa Muusa ibn Nusayr iyo qaabkii uu ku soo gaadhay Andalus. waxaan kaloo ka warrami doonaa furashadii iyo waqooyigii Andalus. sidoo kale waxaan ka warrami doonaa ugu dameysiin doonaa islaamka iyo sida uu la dhaqmo dadka aan muslimiinta ahayn. Dariiq ibn Siyaad oo ahaa markaa hogaamiyihii furtay Andalus, waxa uu taagan yahay baynu soo sheegnay albaabka Tulaydila. Tulaydila waa magaalo ka mid ah magaalooyinkii ugu horumarsanaa, ugu xadaarsanaa, bal waxay ahayd caasimadii Andalus ay ka talin jireen qowdiyiintu bay ahaayeen islaamka ka hor. waxay u dhowdahay imka culimada ay sheegaan, waxay u dhowdahay magaaladan caasimadda waa Spain ee Madrid bay u dhowdahay. Dariiq ibn Siyaad markaa uu yimid magaalada yar duleedkeeda, waxa uu arkayay fursad iyo kansho ka bannaan in magaalada si dhaqso ah u furto. sababtoo ah markii uu dagaalkii Wadi Birbaad ka dhacay markuu galay, uu ninkii meesha ka talin jiray ee loo yaqaan Dariiq uu dilay. culimada qaar waxay sheegaan in la dilay, qaar waxay sheegaan inuu baxsaday. wuxuu arkayay fursad magaalada Tulaydila oo bannaan, furashadeedana aan waxba ka hortaagnay, maadaama oo magaaladu ay ahayd bilaa hogaamiye. sabab fara badan culimadu sheegaan, midna Raaqib Sarjani kale wuxuu sheegaa sabab fara badan. sababaha waxaa ka mid ah magaalada Tulaydila waxay ahayd bilaa hogaamiye, oo waxa isku haystay markii uu ka baxay ninkiina la waayay ka talin jiray Dariiq. waxa isku haystay reerkii ama dadkii uu ka dhashay Dariiq iyo qabiiladii uu Dariiq afgambiye ee qaydasha milkul qaydasha uu ka dhashay ayaa waxa ay isku haysteen iyo ma xilka loo dhiibaya. Dariiq ibn Siyaad halkaa wuxuu arkay fursad ka bannaan inay tahay magaalo bila hogaamiye inuu si dhaqso ah ku furto. markii uu yimid markaa albaabada Tulaydila markii uu yimid, mudunadii hore iyo magaalooyinka hore waxay ahaayeen qalcooyin bay lahaayeen, albaaba laga soo galay albaaba laga baxana way lahaayeen. marka way adkaan jirtay magaaladaas si lagu galo ilaa albaabka la jabiye maahaane. albaabkii markuu soo istaagay Dariiq ibn Siyaad, magaaladii oo albaabkii loo furay buu yimid. sidoo markaa magaalada ku galay wax dagaalayadoo aan ka dhicin, saasuu markaa ku furtay Dariiq ibn Siyaad Tulaydila magaalada loo yaqaano. waan ka warrami doonaa qaabkii ula dhaqmay, qaabkii loola dhaqmay dadkii Andalus markii la furto oo dhan waan ka warrami doonaa. Muusa ibn Nusayr isaga xaalkiisu waa sidee? Muusa ibn Nusayr waxaan ka soo warramnay inuu joogay magaalada Khayrawaan oo ahayd caasimadda wadankii la oran jiray Maghrib la isku oran jiray, isla markaa uu baro saabka ahaa. Muusa ibn Nusayr markaa waxa uu imanaya wararka soo taraya uu imanaya waxa weeyaan Dariiq ibn Siyaad oo si dhaqso ah ku furanaya magaalooyinkii iyo qaybo badan oo Andalus ka mid ah. waxa markaa soo gaadhay inuu
dolaydilo taagan yahay. taarikhyahanadu waxay sheegaan inay qibda qabatay iyo kamasha inay qabatay iyo qaar ay sheegaan xaasidnimo inay qabatay uu xasdayey qaabka iyo guusha uu keligii hantiyey Daariq ibnu Siyaad. laakiin waxaan leenahay waa taariikh aan sugnayn taariikhdaasi sabab badan oo jira awgeed daraadood. Matalan Raaqib Sarjani kitaabkiisa loo yaqaano Qisatul Andalus ayuu kaga warramaya Ibn Athir iyo Ibn Kathir iyo Ibn Khaldun iyo taarikhyo badanna way ka warramayaan. Musa ibn Nusayr waxa uu damcay markaa Andalus in ay fudud tahay in dhammaanteedba gacanta lagu dhigo. nin wuxuu ahaa caaqila buu ahaa oo aadin dheer garada buu ahaa. waxa uu damcay markaa inuu ciidan gargaar ah inuu diyaariyo oo madad ah inuu diyaariyo oo cid walba leh, carab iyo cajanba leh. qiyaasta culimada taariikhyada waxay ku sheegaan ciidankaas inay hayeen 18,000 oo ciidan inay hayeen. 18,000 ciidan markii uu diyaariyey isaga laftirkiisa ayaa hogaamiye u noqday. waanu soo dhaqaaqay wuxuu ka soo dhaqaaqay Qayrawaan. waxa markaa wuxuu soo maray meeshii uu markaa maray Daariq ibnu Siyaad oo ahayd Madiiqu Jabal Daariq meesha la magac baxday. Madiiqu Jabal Daariq markuu marayay ayaa waxa uu gudbay waxa uu damcay markaa qorsheeyay halkii uu magaalooyinkii uu furtay Daariq ibnu Siyaad oo ahayd magaalooyinkan bariga xiga koonfur bari xiga uu maray inaanu marin magaalooyin kale inuu furto. taasna waa mid ku tusaysa inaanu xaasidnimo ka ahayd inuu magaalooyinka iyo dhulkii kale aanu Daariq ibnu Siyaad marin inuu maro oo furto. halkii uu markaa Musa ibn Nusayr ka soo dhaqay Qayrawaan wuxuu soo maray Madiiqu Jabal Daariq. Madiiqu Jabal markuu Daariq marayay wuxuu yimid Ishbiliya, magaalada loo yaqaan Ishbiliya ayaa uu furtay. Ishbiliya ayuu ka sii gudbay wuxuu gudbay magaalada loo yaqaano Qarmoona oo ahayd kamid ahayd markaa magaalooyinkii ugu casrisanaa Andalus. Qarmoona ayuu ka sii gudbay oo waxa uu tagay magaalada loo yaqaano Maarida markaa waxa isku urursaday haraagii ciidankii Lideeriq iyo ciidan Nasaara waa isku urursaday. magaaladiina cagtuu mariyay, magaaladiina waa furtay. markuu Maarida taagay ciidanka waxa la socda wiilkiisii ameenkiisii Cabdulcasiis ibn Musa ibn Nusayr baa la socda. Cabdulcasiis ibn Musa ibn Nusayr ayaa waxa uu dhiibay ciidan yar buu dhiibay. waxaana uu diray galbeedka fog ee Andalus buu diray oo wadankan imka loo yaqaano Portugiiska ayaa uu diray. Cabdulcasiis ibn Nusayr halkii uu ka dhaqaaqay markaa isagoo aabihiina Maarida joogo waxa uu furtay magaalada loo yaqaano Lashbon imka waa caasimadda Portugiiska. caasimadaas ayuu furtay. dhulkaas waa dhul ay muslimiintu furatay imka haddii ay gaala haysato. Lashbon ayaa uu furtay, caasimadda Portugiiska ayuu furtay. Daariq ibnu Siyaad isna waxa uu joogaa magaalada loo yaqaano. intaa uu Musa ibn Nusayr dhulkaas soo maray uu ka soo bilaabay Ishbiliya uu ka gudbay Qarmoona, Maarida. intaa uu dhulkaa marayo Daariq ibnu Siyaad wuxuu ku sugayaa way waxa gaadhay waraaqda isug intaan ku imanayo dowladaha ka dhaqaaqay. dowladdu ku sugaya waxa la sheegay taariikhda sheegan inay ku qaadatay Musa ibn Nusayr intuu isna intaa soo furanayay muddo 1 sano ah. way magaalooyinka qaar buu in badan xisaar ku hayo, in badan uu go'doomin ku hayo muddo sanadaha inay ku qaadatay. Musa ibn Nusayr markaa wuxuu taagan yahay Maarida. waxa uu qorsheynaya markaa sida qaabkii ugu tagi lahaa Daariq ibn Siyaad. Daariq ibn Siyaad iyo Musa ibn Nusayr waxa la sheegay taariikhda sheegan inay kulmeen sanadii 94 ee Hijriga inay kulmeen ku kulmeen magaalada Dulaydila. waxa taariikhda waxa sheegan inuu yara canaantay oo ku canaantay maadaama uu si dhaqso ah ku furanayay dhulkaas uu marayay si dhaqso ah ku furanayay. halkii markaa imka Andalus dhulka Andalus waxa harsan waqooyigii waa koonfurtii oo dhan waa la furtay. xagga Jusrul Balyaar ilaa iyo galbeedka waa la furtay. waxa haray magaalooyin yar oo ku yaala waqooyiga ku yaala, haday tahay waqooyi galbeed iyo haday tahay waqooyi bari. halkiiba markaa ciidan ay ka qaadeen Daariq ibn Siyaad iyo Musa ibn Nusayr wada socda. ciidan wada shir ka qaadeen oo isku dayeen inay inta hadhay Andalus ay wada furtaan. waxay tageen xaggan bariga bay tageen. waxay furteen magaalooyinkan Barcelona. magaalada Barcelona ay ku ciyaarto kooxdan Barcelona la yiraahdo ay waxaan maleeyaa dhalinyarada badankooda inay kooxaha magacooda garanaysa Spain ka jira. magaalada Barcelona la yiraahdo inay furteen. magaalada Barcelona ay furteen oo ku taala bariga fog ee Andalus ku taala. Barcelona ay furteen. Barcelona markay ay furteen bay kasii gudbeen Sarqusta magaalada loo yaqaan ay furteen. magaalooyin kale oo far badan oo bariga ku yaalan waqooyi bari ku yaalan way furteen. intaa markay ay furteen ayaa waxa ay damceen in ay gudbaan
inay kasii gudbaan magaalooyinkaas Barcelona iyo Saragossa iyo dhulka inay ka gudbaan ay gudbaan Faransiiska wadanka loo yiraahdo oo ay u dhaxaysa markaa buuro aynu hore usoo sheegno loo yaqaano Jibalul Baranes ama Jibalul Barane waa buuro aad iyo aad u dhaadheer waxaanay ku teedsan yihiin xadka ay leeyihiin Andalus iyo Faransiisku. Horaan waxaanu soo sheegnay inay Andalus tahay murabbac saddexda koonaba ay ka xigaan bad ay ka xigto biyo ay ka xigaan hal meel ma ahaan waqooyiga ahayn waqooyi bari ahayn waqooyi barina ay ka xigto wadanka loo yaqaano ay xuduud berri ay la leedahay wadanka loo yaqaano Faransiiska waana xuduudka berriga ee kaliya ee Andalus la leedahay wadan inta kale waxa ka hareeraysan bad baa kaga hareeraysan oo bad baa ku wareegsan buurihiiba markaa ciidankaas buuraas waa buuro aad iyo aad u dhaadheer horena waxaynu soo sheegnay inay tahay buuro ay adag tahay in ciidanka infantry-ga ay maraan ama ciidan inay duulaan ay ku qaadaan ay adag tahay adigu buurihii way ka tallaabeen ciidankii magaaladan Armoro loo yaqaanay Faransiis ku taala ayay degeen magaaladaas ayay markaa waxa ka aasaaseen dawlad muslimiin ah waana magaalo Nusayr ugu talagalay inay noqoto magaalo istiraatiiji oo hadhow markuu doono inay duulaan ku qaadaan oo duulaan Faransiiska ka qaado markay iyagu duulaan ku soo qaadeen oo warka ka ogaado magaaladii baa ciidan dejiyay Armoro way ka soo noqdeen waxay u soo noqdeen oo harsan Andalus waxa u harsan kaliya galbeedka waqooyi galbeed Andalus bay yimaadeen waxay furteen magaalooyinka loo yaqaano Istarqa iyo Lyon iyo magaalooyin kale oo fara badan bay furteen sanadii markaas 9 Hijriga Andalus waxay gabi ahaanba ku jirtay gacanta muslimiinta hal magaalo ma ahaane magaalada lagu magacaabo Sakhr Madiinatu Sakhra ama Sakhru Bale magaalada lagu magacaabo waana magaalada hadhow muslimiinta 8 qarni ka bacdi lagaga soo duuli doono baxrimadii iyo taariikhdii ka jirtay 8 qarni ay ku baabi'i doonto magaalada waxa la sheegaa taariikhyahanadu sabab badan ay furmay laakiin waxaana kaga filan inay magaalada marka hore yaraysteen Muuse ibn Nusayr iyo Taariq ibn Ziyad magaalo yar ahayd furana ay siraahdeen laakiin ay ka soo gaadhay ay u timid waraaq ka imanaysa khaliifka muslimiinta ee fadhiyay Dimashq oo dhahaysa joojiya waxa wadaan iguna kaalaya magaalada Dimashq Taariq ibn Ziyad iyo Muuse ibn Nusayr culimadu waxay sheegaan lawla haddaanay waraaqdaas jiri lahayn magaaladana way furan lahayn saana waxa ay ku wada qaban gacanta ku wada dhigi lahayn Andalus oo dhan muddo markaa 3 sano iyo xoogaa ah muslimiintu gebi ahaanba waxay gacanta ku dhigeen Andalus waa wadan aanay weligood arag bad aanay weligood marin bay mareen yani waxay ku tusaysaa hanka iyo hiraalka fog inuu yahay yani halbeega guusha inuu yahay baad ku tusaysaa iyo libinta inuu yahay bay ku tusaysaa Andalus markaa waxaa ka hana qaaday waqtigaas 9 ilaa intii u dhaxaysay 138 Hijriga casrigii la magacaabay casrul ulaad oo waxa ka hana qaaday taariikhii albaxnimo aad u facweyn oo markaa aad soo bilowday 9 Hijriga ilaa 8 qarni socon doonta laakiin casrigaas cusur bay kala leedahay Andalus cusurtaas ayaduna waxay sii kala leedahay wax loo yaqaano casrul quwwa iyo casrul dacf iyo casri ay awood leeyihiin muslimiintu iyo casri ay tabardari ay ku jiraan casrigaas markaa casrul ulaad la magac baxay oo casrigii ulaad waa waali weeyaan oo waxay hoos tagayeen magaalada loo yaqaano waxay hoos tagayeen dawlad umawiya oo ka talinaysa Dimashq dawlad umawiyana waxay barasab u soo magacaabeen Maghrib oo ahayd Maghribul Arab meeshii loo oran jiray Qayrawaan caasimadda ahayd Maghribul Arab markaa waxay hoos imanaysay Andalus waxay hoos imanaysay Maghribul Arabna waxay hoos tagaysay khilaafadii muslimiinta ee khilaafada umawiya bay hoos tagaysay casrul ulaad markaas asaa lagu magac daray taariikhda intaas ay ka jirtay 9 Hijriga ilaa 138 Hijriga waa taariikh ay marka qaab loo eego ay aad iyo aad u adkeyd ka sheekeynteedu oo waxa la sheegaa taariikhda sheegan 22 waali inay soo mareen marka dheeg laga eego diintu ay ku faaftay oo waa jiilkii la magac baxay baa dhashay almuwalladiin yani almuwalladiin ereygaas marar badan uu soo noqon doona waxaan doonaa ninkaas wuxuu kamid ahaa min almuwalladiin buu kamid ahaa muwalladiin waxa weeyaan ciidankii muslimiinta iyo mujaahidiinta muslimiinta ee degay Andalus waxay ka guursadeen oo ay saraayaadkii ay heleen ay gacanta ku dhigeen
dumarkii deganaa Andalus. Marka caruurta ay iska dhigeen dumarkii iska dhaleen dumarkii deganaa Andalus islaamka ka hor iyo ciidankii muslimiinta ahaa ee furtay Andalus, caruurta iska dhaleen waxa loo yaqaanaa muwalladiin. Marka waxa lagu oran doonaa nin hebel ama heblaaye waa min muwalladiin bay ka mid tahay. inta aynaan ka bixin markaa geedi socodka taariikhda, waxaan jeclaa inaan dhex geliyo dhulka muslimiintu ay furteen sida ay ula dhaqmi jireen. Islaamku marka ay duulaan qaadaan waxa ka dambaysa sabab iyo ujeedo. Ujeedada ka dambaysana waxa weeyaan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa inay dadka gebi ahaantoodba gaadho, si aanay hadhow marmarsiyo u helin, bicizin casiizin aw bidullin daliilin ay ku gaadho. sidaas awgeed markay muslimiintu duulaan qaadaan waxay iska horreysiin jireen waraaqo. Waraaqaha waxay odhan jireen waxa kala doorasho leedin 3 doorasho: in ay islaamka qaadataan oo muslimiinta ka mid noqotaan, waa diideen inaad diintiina haysataan laakiin agibir iyo jizya wax loo yaqaan aad bixisaan, oo ogolaataan oo daniina lagu ilaalinayo, oo xoogaa yaroo lacaga oo daniina lagu ilaalinayo oo ku waajibtay dad gooniya iyo goob gooniya iyo goor gooniya ay ku waajibtay. taa haddaad diideen, optionka saddexaad ee dibna waxay inay dagaal soo diyaar garowdaan. waxaa intaas markaa raacda in muslimiintu heshiis la gasho dowladaha kale. Marka haddii muslimiintu heshiis la gasho wadan kaloo gaala oo aan islaam ahayn, haddii heshiis la gasho, heshiiskaas intuu doona ahaato 2 sano, 3 sano, 4 sano, 5 sano, 6 sano, intuu doona ahaato 10 sano culimadu inta ugu badan sheegaan, iyagoo tusaale qaadanaya heshiiskii Xudaybiya uga tusaale qaadanaya oo 10 sano kadib wixii doona dhici karaya. intaa marka haddii muslimiintu heshiis gasho, ama heshiiskaas heshiis ganacsi ahaado, ama heshiis amni ahaado, ama heshiis ay kayn heshiisku doona ahaadee, muslimiintu haddii heshiis gasho, heshiiskaas ka teedaya oo ka celinaya oo u dhaxaynaya muslimiinta iyo gaalada. laakiin haddii heshiiska ka baxaan waxa dhex yaala muslimiinta iyo gaalada dagaal. waayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka quraan ku leh wa in nakathuu aymaanahum min bacdi cahdihim wadacnuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri innahum laa iimaana lahum lacallahum yantahuun. yani haddii heshiiska ka baxaan gaalada oo heshiis ay la galeen ay ka baxaan, dagaal baa idin dhexeeya. intaas waxaa raacda markaas oo insha Allah tacaala ka hor doona jizyadu maxay tahay. waayo waxaan ka 3 qodob waxa kamid ahay inay islaamka qaataan iyo inay diintooda haystaan oo gibir iyo jizya bixiyaan iyo dagaal. Marka jizyadu culimadu waxay sheegaan min aljazaa bay ka timid, Raaqib Sajani kitaabkiisa ku sheegayo, oo ah wax yaroo lacag ah oo lagu ilaalinayo danahooda. waa hanti go'an oo laga qaadayo cid gooni ah, ujeedkuna waa in danahooda lagu ilaalinayo. waxa kaliya ta laga qaaday ay tahay ragga ladan yani ragga wax haysta ee taajiriinta aan fuqarada ahayn, caafimaadka qabana oo dadka xanuunsan wax laga qaado, dumarka wax laga qaado, raggan wax laga qaado marka koowaad. waa marka labaad ee fuqarada wax laga qaado, dadka wax haysta wax laga qaada. waa marka saddexaad ee dadka xanuunsanaya tamarta daran wax laga qaadee dadka caafimaadka qaba wax laga qaada. markii Andalus la furanayay gibirka iyo jizyada ay bixinayeen waxay ahayd 1 diinaar, halka muslimiinta lacagta ay bixinayeen ay ahayd dadka hodanka ah saasoo kale ah ay bixinayeen xoolahooda sake ay ku waajibaysay ahayd 2.5% inay ahayd 2.5% xoolahooda marka la xisaabiyo dhan ay ku waajibaysay. marka waxaad dareemaysaa yani farqiga u dhaxeeya 1 diinaar oo laga qaadayo iyo 2.5% boqolkiiba 2 boqolkiiba adu 3 wax u dhow 2.5% hantidaada marka la qiimeeyo ayaa laga saarayaa si gahan looga saaraya. yani waxa ku tusaysaa in mustashriqiinta iyo waxay sheegaan inay jizyadu tahay gabood falilay tahay, laakiin iminka marka dowladaha caalamka eegtid waxaad arkaysaa cashuurta matalan oo kala laga qaado marka qaar bay 20% noqotaa, 30%, 50%, 70% marka qaar bay noqotaa xoolahaagii oo dhan laga qaadayo. yani waxa ku tusaysaa inaan ahayn xadgudub iyo gabood falin aan ahayn, laakiin ay ahayd 1 diinaar oo waliba dadka ladan laga qaaday inaan lacag badan ahayn. ujeedaduna ay tahay in danahoodii iyo hawlahooda lagu ilaaliyo. insha Allah tacaala qaybta xigta waxaynu kaga warrami doonaa casrul wulaad iyo soo noqoshadii Muusa ibn Sayr iyo Taariq ibn Siyaad ay ku soo noqonayeen magaalada Dimashq, iyo casrul wulaad ayaynu ka warrami doonaa.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي وورائي التاريخ كوم رمادي الزخرفات، أكاد أسمع نبضها والزركشات على السقوف تنادي، قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فاقرأ على جدرانها أمجادي أمجادها. ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي، يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي عانقت فيها حينما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. وترى ما في من عيب سوى أن